السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا جنالك دكتور حلانا كير أدوغو براتين مركز سيتو إنو إديسون قدبيو عافيمات كان سيدا برشاد الداوينك فرماكولوجي عشر كان ماشين أغي كسي ودينا دو إلهي رادو ما أنت وحان كبلا بينا تيبس of drug action تيبس of drug action علي يهي لح قيبوت لمركو therapeutic effect لمبر لابو side effect لمبر 6 toxic effect لمبر 4 allergic reaction لمبر 5 drug tolerance لمبر 6 drug interaction لمبر 2 هذا كهر مرنو therapeutic action وسامينتا kala duwan ee daawadu ku leedahay jirka hal daawo ayaa jirka ku yeelan karto saameyn kala duwan tusaale aspirin waxaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo qandhada iyo in uu yareeyo xaddiga xinjiraynta dhiigga. Lambar 2 side effect waxaa la dhahaa daawada ka yeelan karto dhibaatooyinka lama filaanka ah haddaysan wax yeelan karin waa mid ku qasabto in ay markasto ay dhaawacdo qofka bini'aadanka. Tusaale penicillinka wuxuu sababi karaa shoog lama filaan ah ama wax halis inuu ku imaado jirka qofka bini'aadanka. Lambar 3 toxic effect saameynta sumowga waxaa kor ahaan u qaadi karo in uu muddo dheer qofka la dhibaatoodo. Tusaale sumowga waxaa ka mid ah amoxicillin ama ampicillin waxaana ka mid ah mid lagu magacaabo ama qof inuu ka hortago qofka kaleeto dhaawac jirka u geysanayo. Tusaale labo matag calool xanuun. Lambar 1 haddii qofka uu sumoobo waxaa ku dhici karo in uu labalaboodo. Lambar 2 haddii qofku sumoobo waxaa ku dhici karto in uu matago. Lambar 3 haddii uu qofku sumoobo waxaa ku dhici karo calool xanuun. 4 allergic reaction waxaa la dhahaa waa falcelinta iyo la saadaalin karin ka timaada daawada waxaana laga yaabaa daawooyinka qaar in lagama filaan u yeeshaan xasaasiyadda sida daawada ceftriaxone. Allergic reaction haddii qof ku dhaco ama daawadaas uu qaato waxay yeelan kartaa in xasaasiyo qofka qaado waxaana xasaasiyo ku noqon karto qofka hadduusan fahansaneyn jirka daawadiisa oo soo galayso waxaana loo yaqaanaa ceftriaxone inta badan jirka xasaasiyad ayay u keentaa. Lambar 4 drug intolerance dadka qaar si fudud kuma gaarto daawada jirkooda. Tusaale dadka caba caanaha geela muqaadaraadka isticmaalo ama jirkooda adkaysi uma lahan sidaas darteed waa in loo kordhiyaa xaddiga daawada oo ay isticmaalayaan. Lambar 6 drug interaction waxaa la dhahaa isdhexgalka daawada marka daawo lagu daro waxqabadka daawada ee ka yeelan karto iyo qaadashada dadka markaas ayay saameyn firfircooni ku yeelan kartaa. Tusaale ahaan markii aan cabirno paracetamol iyo ibuprofen markay isku darno qofka wuxuu ka qaadi karaa firfircooni wuxuuna dareemayaa xanuun la'aan jirka ah. Waxaan soo galaynaa qodob ka mid ah barashada daawooyinka. Sixth right of drug waa muhiim inaad ogaatid sixth right of drug. Lambar 1 right drug oo ah daawo sax ah. Lambar 2 right dose oo ah qiyaas sax ah. Lambar 3 right patient oo ah bukaan sax ah. Lambar 4 right road oo ah meel sax ah. Lambar 5 right time oo ah waqti sax ah. Lambar 6 right administration oo ah diiwaangelin sax ah. Waxaan ka bilaabaynaa lambar 1 right drug daawo sax in la siiyo qofka bukaanka waxay ka caawinaysaa in uu dareemo bukaankaas firfircooni badan maxaa yeelay daawada saxda ah waa midka qofka uu dareemi karo inuu caafimaad sax ah helay. Lambar 2 right dose oo ah qiyaasta saxda waxaana la siin karaa bukaan markii la hubiyo miisaankiisa iyo da'diisa ayaa markaas sii kartaa dose sax ah. Right patient oo ah bukaan sax ah si aad daawo u siiso hubi bukaanka magaciisa in uu yahay magaca u qalmay qofkan lagu soo diiwaan galiyay in uu isbitaalka la soo galiyay. Lambar 4 right road meel sax ah
in lagu siiyo daawada bukaanka. Tusaale, haddii daawada muruqa laga siiyo qofka asigoo xidid leh, waxaa ka imaan karta dhibaatooyin kala duwan, ama in uu dhinto ama in uu ku naafoobo. Right time oo ah kan shanaad, waqti sax ah in la siiyo daawada bukaanka iyo inta jeer oo u qoran. Lambar 6, right administration, si sax ah in loo maamulo daawada. Tusaale, in la dhigo daawada meel ku habboon ama heerkul ku filan degree centigrade oo aad u wanaagsan. maasha Allah, halkaas waxaa noo ka eg cashirkeenii caawa. waad ku mahadsantihiin intana daawatay ee dhageysatay. fadlan hanaga ilaawin subscribe, share, like and comment. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.